بدن ومد صومن شعب مسلمين dhiigooda waa banaysateen laakiin soonkan wuxuu noqday soonkii waxa waaye mataqaana malagiina u galay qalidiina waxa waaye meel baa laga maqlay muusow marka waxaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan shacabka waxa waaye waa idin nacay markii umad dhiigoodii la banaystay arday masaakiin oo la dilaayo dumar oo loo calooshooda la dooxaayo waxa soo dhan waxa waaye mataqaana waqtigooda waa u dhamaaday laakiin dadka la soo qalday ficilka sameynaa ma aniga maanta targetkayga ficilka runtii waxa waaye mataqaana nimanka ficilka sameynaya wax dilaya ama wax qarxinaya ama wax baabi'inaya waxa ka dambeeya balaayikalo ka waaweyn balaayada ka waaweyn wax badan waa isqariyeen laakiin waa isqarin waayeen ama xildhibaan ha ahaadaan ama dawladda shisheeye ha ahaadaan ama dawladda daris ha ahaadaan number 1 afka waxa lagu wada dhuftay oo qof haba yaraatay waxa waaye maanta kaba baqay xataa in afka ku cadeeyaan waa yartahay ama xildhibaan ha dhihin ama dawladaha dhihin haba ugu horeeyaan imaaraadka iyo Ethiopia iyadoo wax ficilka dadka fuliyana ay yihiin Somaliland iyagoo ugu go'la intaas soo iyagana inaysan Soomaaliyeed koonfureed aysan marnaba degin si ay wax aqoonsi ku helaan laakiin aqoonsi helitaankoodii umad badan ayuu salafsaday saakiin badan shacab badan arday badan hooyo aab caruur badan aqoon laga dhigay waxa soo dhiba marka waxa waaye bal aqoonsi heerkaas la gaaro bal ka waram umad walaalihiina dhiigiina inaad banaysataan idinkoo waxa waaye mataqaana lacagihii dariiqadii waxba halkaas u soo marsiinay laakiin alxamdulillah waxaan leenahay maanta Turkiga oo runtii waxa waaye dawladda federaalka Soomaaliya garab istaagan ayaa hawshii soo afjaray marka waxaan kaloo runtii waxa waaye bal idin la qaybsanaya ama runtii waxa waaye idin la wadaagaya sababaha Turkiga hadartaan runtii waxa waaye arrintan aad iyo aad waxa mataqaana ugu howlgal maxay tahay waa su'aasha la isweydiiyay jaraadida Turkiga waxay soo wada qoreen arrin runtii waxa aad iyo aad waxa mataqaana muhiim ah oo Soomaalida farxad weyn u ah waxay joornaaladooda soo qoreen in hal ceel kaliya ama waxa hal kaliya laga helay 100 bilyan oo barrel oo shidaalka qayrinka iyo gaaska isku jira ah halka Sacuudiga oo dhan marka waxa reserve-gooda ama kaydkooda 220 uu yahay anagana hal meel kaliya marka Turkiga waxay arkeen arrin aan caadi ahayn waxay go'aan ku gaareen inay arrintan waxa mataqaana si daacad uga howlgalaan iyagana ay ka faa'iideystaan waliba waxa xataa hadii gaaskan waxayna yaraa lahaayeen qarashka barkii markaas uma soo noqdeen laakiin waxay go'aan ku gaareen 70% ayaa la siinayna yiraahdeen Soomaaliyeedtiin annagana 30 qaadayna 30kaas ayaa ka badan waxa socona waa hal ceel kaliya ayaa 100 bilyan laga helay waa area hobyo kaliya kii ma ahan mataqaana waxa ama waxa mataqaana soona waxa Hirshabelle ku yila ama kii mareeg iyo waxa mataqaana soonaha isku yila ma ahan waa area 1 kaliya iska daa adiga waxa shabeellada hoose Kismaayo Puntland waqooyi galbeed kuwa bariga inta iska daa waa offshore kaliya hal meel kaliya ayaa intaas laga helay marka Turkiga wuxuu ku dhiirado oo naftu uu horo ayuu horta helay waana uu ballan qaaday waana arkaysaan diyaaradiiba waxa $30 milyan oo ay joogtaa helicopterada halka xab wuxuu joogaa waa T29ka almost waxa halka xab kaliya wuxuu joogaa $50 milyan oo marka waxa qarash aad u far badan oo meeshii waxa mataqaana aqoon aad u far badan misaal iska bada xabada kaliya waxa mataqaana almost intaas ah daruunada yar yar kaana kuwa nooc hadda uu noo soo diray nooc hadda waxa mataqaana ay dawladda waxa qadar naga bixisay xabadii waa $8 milyan oo iyagana oo waliba waxa ku rakiban qalabka dhaafay waliba casriga teknolojiyada casriga ku qalabaysan marka runtii waxa arrinta in daacad laga yahay waa arkaysan waxa ka dhacay bu'aale iyo qaylada ka baxaysa shabaabkii iyo waxa hana la sii daayo wada ka guurayna war xagee u guuraysa madal Soomaaliya intaad u guurtaan umad ku baabeynaysa waa maya go'aanka Turkiga markaan uu qaatay waa in Soomaaliya la xasiliyo shidaalkeeda iyo qeyraadkeeda loogu wada faa'iideysto markii meel aan waxa mataqaana xasileen haba yaraatee waxa mataqaana lagama faa'iideysto oo waxa ummadan waxa kuma soo dhiirinayso investment wax la yiraahdo maalgashi lagu sameyn karo marka horta waxaan leenahay guul Soomaaliya waxa arrintan Ilaahay waxa mataqaana waxa waqti bay leeyahay laakiin dhowr iyo 30 sano waa soo dhibaatoonay dhowr iyo 30 sano waxa mataqaana beerkan dhulku ku soo wada heynay gaajo iyo rafaad dadnimo ayaan ugu soo baxnay kii dibadda joogay iyo kii gudaha joogay in la isku wada gargaaro iyadoo waliba waxa dhowr iyo boqolaal fuustuna lagu soo riixay ama hay'adaha gargaarka dhihin ama dawladda waaweyn hadhiin oo aan doonin ilaa ay haddana aan doonin inay waxa Soomaaliya nabad noqoto oo dagaal culus kula jira Turkiga laakiin alxamdulillah ama bur ku tirsano Turkiga ayaana garab taagan oo runtii go'aan ku gaartay dagaalka Soomaaliya
aan ka wada waa dagaalan aniga wadtu yiri maaha dagaal Soomaaliya waxa waa mataqaanaa ciddii rabta Soomaali aniga rabtaa u yiri marka asaga naga soo hormaray marka waxa waa guul runtii waxa waa arrin aad loogu farxo madaxweynahana waa aragtay waxa waa inaan arrintan serious ka tahay xildhibaanadii waa aragteen inta badan waxa waa inay maanta waxa tuutaha wada gashteen madaxweynaha inuu tuutaha gashtay in waxa waa arrintan loo wada jihaystay qabaa'iladii in la kiciyay in waxa waa mataqaanaa viruskooda xididadooda in la soo siiba shala jirida laga jiraay mar walba calaamad iyo roomar iyo markuu doo waxa waa soo baxayeen shabaab laakiin hadda xididka hoose ayaa la soo siibaya oo maskaxdii brain streamkii meesha la lahaa oo bu'aala ayaa waxa waa duqeyn ka socota iskuuladay ku soo tababaranayeen meesha qaraxa ka soo abaabulayeen meesha dhaqaalaha waxa waa loogu soo gudbinay inta waxa waa soo afjarmeen marka waxaan leenahay guul Soomaaliya meel kasta oo joogto guushan waa guul Soomaaliyeed